وحليديني وساعديه دتك واوين وكلاميرانكي وهبينك صدح ميلود markay laba meelood tageen xiliyadan oo kale dadka waaweyn ama ragga waaweyn waxa ka digi kara koob kafeeya gabadha aad u qurux badan iyo qisooyinka noocan oo kala qisadana ma sheekadani waxay ka mid tahay kuwa ugu quruxda badan ee ka dhacay Talyaaniga bale kubadda cagta adduunka oo dhan naadiga Parma 2015 madaxweynahoodii ayaa subaxyada kamid la soo hadlay waxa lagu yiri wariyaha Gianberto waxa laga doonayaa xiriirka waxa laga rabaa maxkamadda uu tagay xukunaan 10 daqiiqo qaadan ayaa waxa la iclaamiyay ama la shaaciyay in naadiga Parma uu kacay inuu naadigaasi muflis noqday loona raaridayo Serie D-da kadib markii arrinka la maqlay naadiyo badan oo waaweyn oo Talyaaniga oo Parma taariikhdeeda garanaya ayaa damcaynay lacag u ururiyaan oo kamid ahayd AC Milan oo kamid ahayd Inter Milan oo kamid ahayd Juve balse naadiga Napoli wuxuu kamid ahaa naadiyadii diiday markaa in lacagta loo ururiyo kadib waxa dhacday inay lacagtii waxba u qaban weyday naadigina Serie D loo diray markii Serie D-da loo diray ciyaartoydii joogay badankoodii way ka wada yaaceen Serie D-na ka ciyaari maayo heshiiskii way wada kansaleen nin waliba naadi buu doontay Mauri baa kamid ahaayo AC Milan yimi inkastoo amaah ku joogay mid kamid ah ayaa ku soo haray waa badalka waa geesiga waa actorka qisadan waa kuma waa Alessandro Lucarelli waa la yaabay markuu Serie D baan kala ciyaaraya Parma waa la soo asxaabtiisi baa la soo hadlay familigiisi baa la xiriiray waxa la yiri miyaad waarantay naadigana uu ku daayay Parmadii hore ma aha Parmoy xilliyada qaar ahayd madrasada Talyaaniga ugu fiican oo ka soo baxeen ragay kamid yihiin Gigi Buffon ragay kamid yihiin Fabio Cannavaro Gianfranco Zola Chiesa han yar aabihi ee Juventus imka u ciyaara Juan Sebastian Veron sidoo kale Hernan Crespo oo ah hadaafka taariikhiga ah ee naadiga Parma ilaa hadda dhowr iyo 90 gool sanadkii 1998-1999 ay qaadeen Europa League ay Superka Europa ay raggaasi u ciyaarayeen waa Lilian Thuram waxay haayeen madrasad Adriano laftiisu Parma soo ciyaaray waxay ahayd madrasadaha ugu waaweyn Talyaaniga hadaba waxa lagu yiri Parma hore maaha in magaceedu baabayn yar u jirtaa Lucarelli miyaad waarantay sidaad ugu ciyaaraysaa naadi Serie D-da loo diray wuxuu yiri ninka ragi waa kii hadaf lahaada waa iskuna dayay inuu hadafkiisa ka run sheego waxaan ku soo celin doonaa Serie A-da waa la yaabay waxa lagu yiri waa drama ku nooshahay uu tagay Serie D-da loo raariday waxa dhacday markuu ka sheekeynayo duruuftu la soo maray naadiga Parma xilliyadii Serie D iyo Serie C-da wuxuu ku leeyahay waxaan tagay horyaal dowrul huwaat baa la yiraahdaa lama yaqaan xataa dadka ka ciyaara waxaan tagay buu ku leeyahay horyaal garoomada ay ka dheeraan dhiiqada aad yaabayso bale serviceka ugu fudud oo ah kooxdu inay dharka loo meedho ama markay ku ciyaaraan kadib dharka loo meedho ma helaan buu ku leeyahay waxaan qaadi jiray maryahooda gurigeygan geyn jiro loogu soo meedhi jiray wuxuu ku leeyahay xilliyada qaar markaan soo ciyaaro waxaan iman garoomada qaar aan ku soo ciyaaro aan islaahda meedho heaterba mabaleba waana winter xilligii qaboobaha wuxuu ku leeyahay waqtiyada qaar waxaan ku qasbanaaday inaan biyo qabow ku meedho waxaan ku qasbanaaday inaan ku ciyaaro buu ku leeyahay dhaawac markaan la ciyaarayo buu ku leeyahay kooxaha ugu adag Serie D-da ama Serie C-da oo kale waqtiyada qaar waxa ku soo beegmi jirtay anigoo dhaawacan waxaan soo qaadan jiray buu injection ama waxa la igu soo mudi jiray buu xanuun baabiye si aan ugu ciyaaro waxaan ahaa buu kabtanka koobaad ee yaryarka waxa ka ciyaaryahanada da'yar oo aan magac lahayn waxaan ahaa buu ku leeyahay hogaamiye askari ah oo kale waxaan u daari jiray buu ku leeyahay filimada ciidanka filimada geesinimada gladiator oo kale daawatiin jiray waxaan oran jiray ku dadaalayna naadigan kor u qaadaan horyaalka kala geysaan uu ku guuleystay wuxuu keenay Serie C-da sanadkii ku xigay wuxuu keenay Serie B-da ciyaartii hadaba Serie B-da uu Serie A-da ku iman doonaan waxa ahayd ciyaar aad u qiimo badan oo la wada daawanayay sanadka horyaalka waaba la ilaaway horyaalkii koobaad waxa la daawanayay Parma oo taariikh dhigtay Parma oo noqday naadiga kaliya ama ugu horeeyay ee 4 sano isku xiga
afar darajo kala duwan soo mara 3 sano isku xiga. Serie D buu ka ciyaaray, wuxuu keenay C sanadkii ku xigay, haddana kii ku xigay buu B keenay, haddana kii ku xigay bay A yimaadeen. ciyaartaas oo indhaha aad loogu hayay ayaa waxay sariyanayay iyaga iyo Frosinone naadiga la yiraahdo isku dhibcay ahaayeen. kadibna waxay la ciyaaraysaa Frosinone naadigii Foggia la oran jiray, halka ay Parma kala ciyaaraysa Spezia 2-0 bay u dhiibaysaa ciyaarta Parma, halka naadiga Foggia uu qabanayo lugaha ku dhagay naadiga Frosinone ay 2-2 ku dhamaanayso. walow Frosinone marka dambe isreebreebka dambe ee la galo ay ku soo baxaysay noqon doonto 3 kooxood ee sanadka biida ka soo baxay, waa Empoli, waa Parma, waa Frosinone inta soo baxaysa sanadkaas. qisada haddaba cajiibka ahayd waxay ahayd indhaha aadka loogu wada hayay qisada Lucarelli iyo Parma. waxa dhacday markii ay Serie A u soo baxeen isagoo 40 jira ayuu kaga fadhiistay. wuxuu markuu khudbadeynayay uu lahaa, waxaan ku faraxsanahay naadigan aan jecelahay, magaaladan aan jecelahay Parma, magaaladan aan naftayda u soo horay inaan maanta Serie A keenay. wuu wada ooyeen garoonka dadkii fadhiyay, isagaa ooyay. markuu wariyuhu wareysanayo wuxuu leeyahay idaan ooyo sidii ilmo yar oo kale. Alessandro Lucarelli rag noocaasa ayaa kubadda cagta soo maray. markaas dumarku waxay ku oranayaan rag waa khiyaamolayaal. rag fanaanada daacadda u noqday miyaa qof bani aadam daacad u noqon waayaya? waa maya, balse khiyaamada idinka ku abuura ragga dumarow inay meel kale u baydhaana idinka ku abuura. Alessandro Lucarelli heer wuxuu gaaray markuu naadigan uu ciyaarayay iska daa inuu lacag ka qaato isagoo professional player oo daafac adag ah oo naadi kasta soo dalban karo ayaa wuxuu ugu ciyaarayay naadiga Parma free, waliba wuxuu kala ciyaaray Serie D. markaas waliba wuxuu ku leeyahay lacagteeda bangiga ii taala inaan mushaharka ka bixin jiraan ciyaaryahanada qaar ka siin jiray markii waayaan naadigu mushahar ay bixiyaan. Alessandro Lucarelli naadiguna wuxuu ugu abaal guday xilligaas inaan numberka 6 cidi ka xidhanin. ilaa hadda Parma numberka 6 cidi ma qaadato, kaliya waxa ku suntan funaanada Alessandro Lucarelli. sidoo kale qabcad kamid ah qabcadaha garoonka lagu xardhay magaciisa Alessandro Lucarelli. taariikhda ninkan iyo taariikhda naadiga Parma kaliya waxay mutaystaan respect, labadaba mootaaga.